agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo warbixinta maalinlaha ah la wadaagay bulshada ayaa ka warramay halka ay marayso xaaladda xanuunka COVID-19. agaasimaha guud geesta kale waxa uu bulshada la wadaagay fariimaha caafimaad ee xanuunkan lagula dagaalamayo waxaana hadaladii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland kamid ahaa wali waxaan bulshooyinta la wadaagaynaa inaanu jirin wax ku soo biiray xaaladii hore dadka aynu shaybaarka u sameynay waxa ay marayaan 127 qof iyadoo maalin walba ay dad ku soo biirayaan dadka la shaybaarayo laakiin dadka xanuunkan laga helay ee la hubiyay ee xanuunka lagu hubsaday waa 6 qof ay noogeyn 6 qof hal qof ayaa bogsiya iyadoo oo kuwa kalena shaybaarkoodii lagu hubsanayay inay bogsadeen iyo in kale uu dibadda ku maqan yahay shaybaadhada inoo maqan waa 12 qof waxa kale oo jira sidii caadada ahayd inaynu eegno oo aynu ilaalayno oo aynu screen garayno dadka wadankeena soo galaya ee la socda baabuurta ganacsiga ee iskaga gudbaya wadamada aynu jaarka nahay dadkaasi waxay 24 saacadood u dambeeyay ahaayeen 1790 qof 1790 ka qof wax calaamado xanuuna laguma arag wax madoodu kacsan tahayna laguma arag wax laga shikeeyna laguma arag waxaad la wada socotaan inaynu hawlgelinay oo ay shaqaynayso call center dadku ay soo garaaci karaan marka ay xaalad caafimaad ama xaalad u eeg xanuunkan oo kale ay ka shakiyaan dadka guud ahaan soo garaacay muddadii uu shaqaynayay waa 300,000 oo qof 24 saacadood ee u dambeeyay waxa soo garaacay 20,369 qof iyada oo asaka tirada ka muuqata aad arkaysaan inay dadku ka waantoobeen garaacidii ku ciyaarta ahayd ama garaacidii ku celcelinta ahayd ee dadkaasi waa dadka markaa si dhab ah u soo garaacay ee helay dhaqaatiirta ama taladoodii ama ay u jawaabeen howlwadeennada caafimaad ee fadhiya xarunta call center-ka ah sidaad la wada socotaan dadku marka ay noo soo galaan ay dibadaha ka yimaadaan gaar ahaan dadka dibadda ka yimaada waxa lagu sameeyaa karantiin 15 qof ayaa karantiin inoogu jira oo aanay wali muddadii ka dhammaan iyagana wax xanuuna oo ka muuqda iyo wax calaamado ka muuqda ma jiro laakiin waxaynu ku haynaa meelihii karantiinka xaaladooda guudna way fiican tahay waxa ugu horeeya nadaafadda oo aynu dadka aad ugu talinayno oo aynu leenahay hal la faraxasho hal la maydha gacmaha nadaafadda guud iyo tagaarba hal la ilaaliyo hana la badiyo faraxalka iyadoo la isticmaalayo biyo soconaya iyo saabuun